أباي وحميس كنا صار لبقف درسلا عبدي أستحاجيو هدا مدحوينها يوتيوب كلا لها يا معناها إيش شغل جوجن أو كفر يسنل يا شغل جوجن كسمايل لهاد معناها إدريس العبدي ناس إدريس العبدي يا جوجي لاني يوتيوب نواك حرلا إدريس العبدي شغل جوجن كسمايل شغل جوجن كسمايل معناها محا علشان سووا ليه sababta uu leeyahay badan kaan reactionadiisa kama helo ase qofkan ku xidhana taageeraha weyn oo asad xaajiyo mar walbana u baahan in la dhiirigeliyo asad xaajiyo waa salaamantahay gabadhan taageerada waay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن مركلة اسمقال أرجونيسن دمانتين أصحابتك وحرن ولالك حسني فاشيون هالكاد مقال باهي هناك كدعوانيسا ويوتيوب كحسني فاشيون ومركل أنا جو أركسنا ولالك حسني أو قرب كي مدقت تاجن وكفر حسنا هاي كلن كأني وصهر إنكو كوشة جنبا barnaamijyada inada horay ayay u bilowdeen barnaamijkana maanta waxa uu ku saabsan yahay iyo waxyaabaha markaas aan kaga hadli doonana waxa inoo sheegi doona walaalkay xusni soo dhaw waa maasantiin asxaabay sida wax badan fikirkiina aan wadna oo kaliya commentiga waxaan soo qorteen oo kaliya aan ku dhaqaaqona marka maanta barnaamijku wuxuu saaran yahay aniga walaasheed ayaan aragsan waxaan ugu talagalnay in ana ii sheegay aan sameeyno laba qof oo youtuber oo caan ah labadaas qof waxaan rabnaa inaan macna ii sheegay qof walba fikirkiisa barnaamijka wax kale ma ahan dirsila cabdi iyo isha asad xaajiyo lacala hadaa madaxa youtube hadii laga dhigi lahaa asad xaajiyo iyo dirsila cabdi yaa macna shaqo fadhiisin ku sameeyay lahayd marka barnaamijkaas uu barnaamijkana ku socdaa falanqeynta iyo barnaamijkaas insha Allah waxaan rabnaa inaad ii sheegay hal iyo laba iyo dad markaas meesha marayna soo qabano okay ii sheegay asxaabay waxaan ku wadnaa labada barnaamij dirsila cabdi iyo asad xaajiyo laba qof miisku saaran dirsila cabdi iyo asad xaajiyo hadii madaxweynaha oo laga dhigi lahaa iyo youtube-ka macnaha ayaa labadooda shaqo fadhiisin ku sameyn lahayd wallaahi aboowe waxaan shaqo fadhiisin ku sameyn lahaa ninka la leeyahay dirsila cabdi أسد حاد شو نحن ليه قوليس إن شاء الله. أوكي وما ستة محاد درس العبد أو معنا شقد أو معنا وفي سلاد محا. والله أبو ورتاويل سوماليات وايا ولا لك يا لوذا ويل لكن هو بيجي جماهن. أنا كفرس أنا كفرس إن شاء الله. لا درس العبد. بس كفرس هو. شقدك في سلاد. أسد ما شاء الله تاجر المروبة وهاي. أوكي وما ستة مش كستوس أو جرنا قف كل بعض واي قبل ولا شيءنا. magacaaga Aisha beena youtube-ka laga dhigi lahaa yaa shaqo fadhiisin ku sameeyay leed ani ahaantay Aisha ahaantay waxa ka fariisi lahay keen maxalla dirs cabdi ak fariisi lahay okay maxaa soo xaajiyana waxa dhihi lahay mar walba guuleyso garabkaagana maxaa calaashan ii sheegay oo uu fiirsanaad dirs cabdi معناها الشغل جوجن محاو فليس له معناها محا قلد ولا أما لا وحياة بدن ولا قلادات إن كست أنا قلادات أفير سنين أنا أو سكراب أسرين معناها أما أستحاجي أنا ما في عنك ما هذا المرة أستحاجي ولا أستحاجي ها إلى عفوا أستحاجي ضدك أصحابته هذه كتاجرسين مرك إن شاء الله وما استباي أوكي برنامج كستو سوي جرنا gabadha walaasheen arnaa barnaamij sheegay abaay magaca ku soo walaal aniga rooda lay dhahaa waan dhawahay abaay waxa miiska noo saaran laba qof dirsila cabdi iyo asad xaajiyo hada madaxweynaha youtube-ka laga dhigi lahaa yaa macnaha isha shaqo joojin ku fadhiisan la yaa shaqo joojin ku sameeyay lahayd macnaha idris cabdi naas idris cabdi yaa joojin laani youtube dhawa ka xidhila idris cabdi شغل جوجك سمين لها معناها محا علشان سووا ليه sababta uu leeyahay badan kaan reactionadiisa kama helo ase qofkan ku xidhana taageeraha weyn oo asad xaajiyo mar walbana u baahan in la dhiirigeliyo asad xaajiyo waa salaamantahay gabadhan taageerada waay waxaa dhinacayga taagan mid kamid ah wiilasha Soomaaliyeed isla markaana ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho walaal soo dhawaad adigoo magacaaga ku bilaabaysid aad baan mahadsantahay waa dhawahay magacaygu waa Cabdiqaadir Faroole aad baan ninka mahad celinayaa cabdiqaadir walaalaada u mahadsan tahay sida quruxda badan ee waqtigaaga qaaliga aad inoo la wadaagtay waan kaaga mahad celinaynaa cabdiqaadir barnaamijka ayaan maanta la dhex maraynaa mikrofonka bulshadeynta ku dhaqan Muqdisho barnaamijkaasna wuxuu yahay even hadii laga dhigi lahaa madaxweynaha youtube-ka ama ii sheegay aad u noqon lahayd mas'uulka ugu sareeya youtube-ka laba nin baa markaas miiska inoo saaran daawadayaashana iyadana way ka soo jawaabi doonaan insha Allah asad xaajiyo iyo idris cabdi kee ayaad ka fadhiisan lahayd maxaa la dhahaa baraha bulshada gaar ahaan youtube
bismillahi raxmaan raxiim runtii horta labadu waa laba dhalinyaro ah oo baraha bulshada caanka ah siba YouTube-ka runtii labadaba waxa way taageero buuxdaan u hayaa waana daawadaa laakiin haddii la dhihi lahaa mid ka fariisi labada waxaan ka fariisin lahaa Dirisle cabda ka fariisin sababta aad kaga fadhiisanaysa waa maxay Dirisle cabdi runtii laba nin oo de miisaan labadi weydiisay waxaa tiri labada keebad ka fariisin lahayd Dirisle waxaan u doortay Dirisle runtii wallahi waa nin reactionkiisuna qurxun yahay laakiin barta hay iga joogo maadaama ay tahay ninka la dhahayo cabdiqaadir markii si loo eego qofka aad si qaas u taageertay ama aad xiiseeysid marka muuqaal uu soo duubay kuu soo dhaco waa kuma labadaan nin runtii waxaan xiiseeyaa Asad Xaajiyo waan xiiseeyaa oo nin dhalinyaro ah oo aan taariikhdiisa markii video ugu horeysay taariikhdiisa aan la bilaabay ilaa haddana aan la socdo halkan aad baan ugu hambalyeynaya habeen dhow wuxuu gaaray 400 oo kun oo subscribe waxaan leeyahay saaxiib hambalyo walaalkay cabdiqaadir waa ku mahadsan tahay qaabka quruxda badan ee markaas aad inoola wadaagtay fikradaada ku aadan midkee dooran lahayd labada YouTuber Dirisle cabdi iyo waliba walaalkan Asad Xaajiyo waana ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad baa u mahadsantiin waa tahay daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ayaan ku jirnaa sida aad u joodaanba maanta aan waxaan qaabilsanahay dhanka wiilasha xusni oo asagana dhanka gabdhaha barnaamijka igala markaasi daadihin doono wiil Soomaaliyeed ila joogo isla markaana aan ku wada sugannahay caasimadda dalka ee Muqdisho walaal horta marka hore soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaysid aad oo mahadsan tahay magacayga waa Maahir Cabdullaahi Ciise dadka inta badan waxa jecelnahay wada garanaanaa jecelahay sharaf ay tahay barnaamijkeena ka soo muuqdo maahirow aad baa u mahadsantahay maadaama aan sheegtay in dadka dhankooda garanayaan waaba dadka loo baahan yahay tahay oo markaasi bulshada ay raadinayaan maxaa sidii kartaa maanta waa la weydiinayaa maadaama aan si kadiisa isku qabanay wallaahi caalamul khayb miihi markaa ku dhahay bulshada badankoodu ay garanayaan ka wada faham bulshadu ay garanayaan waxa la jeedaa badankoodu ay garanayaan caalamul khaybna miihi wax la weydiinaa ma garan karo laakiin waxa diyaar oo su'aal baa la weydiinaa ka jawaab insha Allah waa tahay haddaba waxaan ku weydiinayaa su'aal iska basiida oo markaasi aad su'aal aadna filanaynin laba barnaamij laba nin baa markaasi miiska inoo saaran even haddii laga dhigay madaxweynaha YouTube-ka Asad Xaajiyo iyo waxa miiska noo saaran Dirisle cabdi qofka aad ka fadhiisan lahayd baraha bulshada gaar ahaan qaybta YouTube-ka horta su'aal waxay weydiiso oo jawaab fudud aan ka bixin karo sababtoo ah waxa ka joojin lahaa Dirisle ka joojin lahaa waa tahay waqtigaaga quruxda badan isla markaana aad inala gelisay daawadayaashaadna fikirkaaga saliimkaada ugu dhiibatay waa kaaga mahad celinaynaa insha Allah sidoo kale soo dhaw magacaaga adoo ku bilaabaysid والله برشلونة سمية بارو marka xakada baari ma sha Allah walaalkay baaro horta gabar oo baar la dhahay argajirbiil baar la dhahay maanta si midigtay u taagan yahay soo dhawow baaro horta see u aragtaa barnaamij Dirisle cabdi iyo Asad Xaajiyo ayaa shaqada ka fariisin lahayd isla markaana aalad والله qofka shaqada ka fariisin lahaa maxaa waaye Dirisle Xaaji Dirisle cabdi Dirisle cabdi laakiin ma jecelin oo dadka mucaarad ku yaan vent asagoo aad taageersanaa haddana isha mucaarad agtiisina waa su'aal markii la isweydiiyo daawadayaasha xoogaa mataqaanaa way ku mashquulayaan laakiin qof walba jooskiisu leeyahay qofku shaqada siin lahayo qofku shaqada siinayna asay u taala waa ku mahadsan tahay fikradaada iyo sida quruxda badan ee aad inooga qaabisho markaas inaad nala wadaagto qaabka markaas aad u xalin lahayd daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni su'aal weydiinta Dirisle cabdi iyo waliba Asad Xaajiyo waxaan markaani soo galnay carwo macaani oo kamid ah carwooyinka ugu caansan ee magaalada Muqdisho isla markaana ugu shoppingka iyo ugu adeega wanaagsan ma sha Allah in walaalkay soo dhawow barnaamijka su'aal weydiinta ayaan ku jirnaa barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay Asad Xaajiyo iyo Dirisle cabdi even haddii laga dhigo madaxweynaha YouTube-ka qofka aad ka saar lahayd magacaaga adoo ku bilaabaysid kuna soo dhawaanaysa barnaamijkeena YouTube-ka naga Xusni Fashion waa salaamatiin asxaabta magacayga waa Jamaal Axmed oo ku magac dheer Jamaal Gaawo saa u taqaaniin anigu waa iga dheertahay bismiil ana qofka iga dheer wuu dheer yahay adiga ka waa ku sirin fahmin ma bud dheer ay soo xiratay laga helaa kabtaan ma sha Allah waa nagu soo hagaagaysiin dacar macaani hadda ka bilaabanana waxa waa saa ugu xirmaya even haddii laga dhigo madaxweynaha YouTube-ka waxaa tartan ku jiro Asad Xaajiyo iyo waliba Dirisle cabdi oo laba YouTuber ah qofka aad shaqo fadhiisinta ku sameyn lahayd oo aad ka saar lahayd barta loo yaqaan YouTube-ka horta Asad Xaajiyo ma Asad Xaajiyo
waxa waa cimaamadiisa lama heesan karo waa la dhawaa kara saaxiib ishoonka ishoon waa mafahmino ma sha Allah mar wal usigan taageersanaa aniga ilaaha ku barakeeyo sababta ku taageerta asxaajiyo ma noo sheegi kartaa wallaahi maxaan ku dhahaa waa iska jeclaa ninkaas maasha Allah qalbiga laga wada jecel yahay asxaajiyo walaalkeen asagana waxaan leenahay ilaaha ku barakeeyo waxaad ku mahadsan tahay magacaaga soo Jamaal Ahmed جمال وليبا جمال جابو بيسرعي أنا كنا أيام جابي هذيك بعد اللي ده ورالك وتما سنت وقتك قالي جاي يصير قروح بدن مركزي هذه نولا وذاك داود يال واحد لسعتين برامج كنا جيتوسك ها سؤال ويدين تا فكر كذا وضياشة وأنا جبدي برامج كيان مكان سلسو قارني ما أنت واحد ميز كسيتو سنة وصارنا لو يوتيوبر أو مركزي برتو يوتيوب قعان كا وإدريس العبدي ولي بأسد حاجيو نحسن فاشون دعدي قروح بنداد أما وياك بنداد ما أنت aan ka dhageystay daawadayaasha waxay ahayd inay u wada codeeyeen walaalkiina Asad Xaajiyo isla markaana Idris Alcabdi uusan helin hal codna oo ay waliba waraaqadiisa ilaa hadda ay zero taagan tahay sidee u aragtaa adiga laftigaada fikradaas wallaahi xaqiiq ana la yaabo dadka markaan wax wareysano Idris Alcabdi Asad Xaajiyo yaa macnaha iyo miiska noo saaraya doonada markaan dhano ama yaa shaqada fadhiisin ku sameeyay markaan sameeyno waxaan aragnay in dhahayaan dadka Asad Xaajiyo Asad Xaajiyo Asad Xaajiyo Asad Xaajiyo marka waxaan nabaayay hal qof ahaata aan helnaan bal qof ugu dambeeyay ninkan ahaa Jamaal marka waxaan isnaanay bal asina fikirkiisa qaata asagana wuxuu dhahay Asad Xaajiyo ashonga asalna oo nasiir raacay ashonga asalna uu dhahay dadka dhan waxay jecel yihiin Asad Xaajiyo maantana aan barnaamijkan meeshan ku qabanayna Asad Xaajiyo ayaa markaasi ku guuleystay waan ugu hambalyeynaa walaalkeena Asad Xaajiyo oo gaartay dadkaagan waa aragnay because qof walbo anaga aan dhahnay oo ii sheeg hebel doorto wallahi inaysan jirin faan laakiin qof walba jooskiisa oo ka hadlay marka Asad Xaajiyo waa ku taageersana aniga laftiga dilay weydiiyay Asad Xaajiyo oo codeel ma Idrislaan dilay بس أستحاجي إنه وضرعنا مهمة ما أنا أستحاجي ولا جرا ولا جيب والله فاكوا thank you gabagabadii barnaamijka markale iyo markaasi cid kale markaasi nasiib u yeelato inay miiska markale soo saarno ayaan iskula soo laaban doonaa thank you hadaad ku cusubtiin subscribe like share noo saara asxaabi sida iyo nabadgelyo